Assalaamu calaykum. Saan wada ognahayba artificial intelligence-ga ayaa maalinta ku xigto sii xoogeysanayo. Runaatii sanadka hor had meesha u taagnaa hadda ma taagno. Marka waxaan muuqaalka inaan ku soo isticmaali kartid artificial intelligence-ga ama AI-ga markay noqoto dropshipping-ka iyo guud ahaanba e-commerce. mumlina macluumaadka inaad ka heli karto koorsooyinka aad qaadataan oo maaragtay oo meelaha lagu iibiyo marka waxaa isleeyahay muuqaalka wuxuu noqon doonaa muuqaal aad iyo aad muhiim u ah sidoo kale muuqaalkan wuxuu ku daba xigaa muuqaalkii hore aan ka hadlayay sida ku heli lahayd product research aan dhahno hadda kale product research-ka waa heshay waa soo ogaatay productka iibirto waa soo ogaatay qofka iibinayo waa soo aragtay qofka iibinayo marka muuqaalkan ayaa ahaan doona muuqaalka ku xigo wixii maaragtay aad samayn lahayd mid kale rabo inaan sheego waxay tahay arday yar oo kooban ayaan qaadan doonaa si aan u baro dropshipping-ka si live ah maaha koorsaan ku siinayaan ka tagayo balse si live ah one to one oo maaragtay aan mar walba soo galaayo oo maaragtay wax walbaba nila sameynayo marka dadka qof xiiseena inaad baratid dropshipping-ka fadlan igala soo xiriir Instagram-ka follow ni soo dheh haddana muuqaalkeeni gudaha u galno muuqaalkan gabi ahaan waxaan isticmaali doonaa ChatGPT oo dhamaanteenba aan wada naqaano marka soo gasho ChatGPT qasamaha ina maaragtay aad gadatid midka maaragtay pro-ga kaliya hadda waxaan isticmaali doonaa midka free-ga kaas ayaana kugu filan laakiin waxa ogaataa marka cabaar ku wadid oo maaragtay waxyaabo badan aad u adeegsatid marka dambe heer wuxuu gaarayo ku dhahayo limitka ayaa dhaafisay inta kadib adartina si isticmaashid waxaa gadataa ChatGPT pro-gana kaliya waxa waa bishii $20 hadda u baahantahay waa gadan kartaa haddii kalena qasam mahano free-ga ayaan ka adeegsan karnaa mid labaad rabo inaan ka hadlo waxay tahay ChatGPT-ga waxaan u isticmaali doonaa inaan af English ku qorno markii haddii ay kugu adagtahay inaad af English ku hadashid ama af English aad qortid waxaan ku dhaho ma garanay sababtoo wax walba kugu adkaanayaan sababtoo dadka aniga hadda rabno inaan maaragtay aan koobiyeyno soradooda u shaqeeyo dadka arab inaan maaragtay ku dayno alaabta iibinana ay iibino dadka arab inaan target gareyno alaab aan ka iibinana waxa waay dhamaantood dad ku hadlaayo luqadda Ingiriiska soo marka ay ku adagtayna luqadda Ingiriiska maaragtay qortid ama akhrisid ama ChatGPT ku qortid kulli hadii waxaan ku sheegi doona dhamaantood maaragtay kuma anfici doonaan marka waxa ku dhihi lahaa muuqaalka iskaga bax soo daawo maaragtay sida loo barto luqad ama luqadaba soo baro oo maaragtaas ayaa ka muhiimsan wax walbaba soo ChatGPT marka timaadid account ay hagaajisanaysaa marka account hagaajiso kadib waxaa ku tusi doonaa saa u isticmaali kartid marka koobaad saa u samayn kartid competitor analysis waxay tahay in shayga adiga aad dooratay qofka iibinayo inaan ku sameyn analysis waxay tahay inaan ogaano wuxuu iibinayo horta maxay tahay dhibaato noocay ayaa xalisaa waayo qofka uu ka iibinayo shaygan waa maaragtay angalada waa maxay angalada maaragtay uu target gareynayo maanta wax iibinaysid waxay leedahay wax walba wuxuu leeyahay angles loo iibiyo waxay dhahan marketing angles ina ogaatid waa maxay marketing angleska uu ku iibinayo marka analysis aan ku sameeyno waxa soo dhan ogaana kadib haddana ChatGPT waxa leenahay waxa noo sameeysaa mise waxa noo maaragtay noo sheegtaa domain suggestions waxay tahay inuu noo sheego domain aan dooran karno kan la mid ah soo domain-yada uu na siiyo dhamaantood ayaan qaadanaynaa kadib waxaan ku fiirnaa inay maaragtay waxaadina kale domain.com oo kale waxa fiirnaa haddii ay free yihiin domainkaas oo iibsanayna haddii free ahna waa free ma qof kala qaatay soo marka ChatGPT ma ogaan karo domainka free-ga iyo domainka free-ga ahaan kuwa badan ayuu ku siinayaa kadib ayaa la rabaa inaa maaragtay kolba mid ku tijaabisa aragtay inuu free yahay iyo in kaleeto aan dhahno mid ayaa free ah oo noo soo baxay kadib haddana waxaan sameyn doonaa inaan dhahno logo noo samee sida waa hore aan wada naqaanay logoda waxaa loo adeegsan jiray graphic designer inuu ku soo sameeyo laakiin maanta la joogo ChatGPT kaliya ayaa maaragtay ku sameyn karto logoda u baahan tahay adigoon u yeeranin graphic designer adoo lacag ku bixinin qof graphic designer ah informationkaas iyo graphic design skillkiina aadan baranin midda kale aan u isticmaali karna ChatGPT waxay tahay inuu noo sameeyo product images waxa ognahay dhamaan in lagu soo daray ChatGPT maaragtay feature uu hagaajinayo image generation uu hagaajinayo sawiraan uu hagaajinayo so image generation kaas ayaan u isticmaali doonaa inuu noo hagaajiyo product aan dooranay sawiro iyo maaragtay dad AI ah ee isticmaalayaan dadka AI marka aragtana misdhiisid qofkan AI qof waxa uu yihiin sax soo waxa siinayna soo kale waxa siinayna shay product waxa leenahay natus soo qof foto soo qof isticmaalaya soo qof yani waxa u sheegtidbo uu ku sameynaya waa horna tan kale way aad ka dinaa soo heshid producti oo maaragtay in real life uu qof isticmaal hadda laakiin anagu adeegsanayno image generation kaas waxa heli karnaa muuqaalo maaragtay nadiif ah iyo maaragtay shayga oo la isticmaalayo waxyaabo noocaas oo kale taa sidoo kale wuxuu naga saacideyn doonaa
copyga maaragtay loo isticmaali doono storeka sababta storeka waxaa loo baahan yahay inuu maaragtay yahay store qoraaladiisa ay ku qoran yihiin meesha ay yihiin qoraallo maaragtay soo jiidanayo qofka iibsanayo soo jiidanayo so waxaas oo dhan isagana wuxuu kaa saacideynayaa in aad maaragtay ku dhex qortid storeka amaanta tusaale ku soo qaadan doona waxay tahay SolarWave saynta ugu aragtaanba SolarWave waxay iibiyaan maaragtay red light therapy red light therapy wuxuu ka caawinayaa qofka maaragtay wrinkleska fine lineska blemishes say ku qoran tahay wax walba maaragtay maqaarka la xiriiro ayuu maaragtay ka caawinaya oo wuxuu taageeranayaa dhibaatada gudaha ah dadka badan waxay isticmaalaan kareemooyin laakiin isaga wuxuu ku leeyahay waxaan ka caawinayaa waxa gudaha ah oo maaragtay oo la xiriiro skin care marka saaragtaanba storekoodu qurux badan yahay waxay isticmaaleen social proof sida loo sameeyo storeka waa usoo laaban doonaa taas muuqaal kale ayaan ka sameyn doonaa hadda laakiin maaragtay waxaa marinaa keliya step 2 oo ah in ChatGPT iyo AI aan isticmaalno so marka aragno in storeka suu eegi arkeena waxa dhan ay sameynayaan waa aragnaa marka si aan u sameyn analysis waxa kaliya u baahanna waxay tahay in aan soo koobiyeno linkigooda linkigan koobi leeyahay ChatGPT imaanaya linkiga meel ku paste gareynaya marka ku paste gareeyo linkiga hoos ayaa u baxaya waxaa leeyahay so hadda waxaa weydiiya ku dhahay kindly analyze this competitor website their marketing angle avatar problem and many more waxaa leeyahay analyze garee linkigan kuu dhiibay waxaa i sheegtaa maaragtay marketing angle-kooda avatar waxaa la yidhahdaa qofka ay target garanayaan qofka yaa waaye maaragtay qof noocee waaye meeqasan uu jiraa qofka ay is leedahay qofka ay is leenahay productkan ku wanaagsan yahay waxsan ayuu ku sheegaya problemku xalinayo iyo waxyaabo badan oo la xiriira waxaas soo markaan dhahno enter isaga ayaa analyze garanayo storekaas kaliya waxaan siiyey linkiga storeka isaga ku sheegayo maaragtay macluumaadka dhan oo la xiriiro storekaas so marka hadda ChatGPT markuu noo sameeyay analysiska waxaa noo soo baxay marka koowaad brand overview wax weyn maaha kaliya product maaragtay brandkan magacooda iyo meesha maaragtay ku base garaysan yihiin waa taas muhiim maaha hadda oo socno waxaa arkaynaa target audience waa dadka ay target gareynayaan dadka ay maaragtay wax ka iibinayaan waxay yihiin haddaa fiirna age-kooda waxaa u dhexeeya 25 iyo 45 sano waxay u badan yihiin predominantly female dumar ayay u badan yihiin location-kooda urban and suburban taas taa muhiim maahan income level-kooda middle to upper middle class profession-kooda taas idana muhiim maaha psychographics marka waxa waaye dhanka waxyaabaha maaragtay uu fiirinaya waaye marka koobaad wuxuu fiirinayaa 6 effective time saving ayuu markaa sababta skincare markaa marsanaysid waqti badan ayuu qaadanaya dadka dumarka marsada garanayaan laakiin markii ood maaragtay real life therapy isticmaalaysid waqti yar ayuu kugu qaadanaya ku leeyihiin dhankaas ayuu ka target garanaya wuxuu ka target garanaya dhanka maaragtay wellness ka waxyaabana caskulta soo markaa fiirinaya sidoo kale wuxuu ka hadlayaa product lineup waa inta product uu iibinayo wuxuu iibinaya product laho 4-in-1 product laho buy acne eye recovery neck chest inta product dhammaantoodna waxay yihiin product la xiriiro maaragtay red light therapy sidoo kale waxaa aragnaa marketing strategy uu isticmaalayo maaragtay waxaa ka mid ah inuu la shaqeeyo influencers and celebrity partnership dad influencer ah oo magac leh oo TikTok ama Instagram-ka ayuu la shaqeynaa sababta markuu brandkaaga uu weynaado waxa awooda in aad dad lacag u dirtid lacag kula shaqaysid dhahdid muuqaale ka sameeya shaygaas waa inay soo diraya kadibna markay muuqaale ka sameeyaan waa partnership sama social media advertising targeted ads ayuu isticmaalaya sida Facebook sida Instagram iyo TikTok sidoo kale wuxuu maaragtay xooga saaraya UGC user generated content iyo testimonials retail expansion waxaa laga helayaa Ulta Beauty Nordstrom iyo Saks wuxuu ka hadlayaa dhammaan استراتيجية استعمالها سي ومعرفة أسكال جريو برانكن sidoo kale hadda aragno waxaan arkaynaa problem solving approach dhibaatadu xalinaya SolarWave addresses common skincare concerns by providing convenience xataa in si fudud wixii uu ku fududeynayo at home treatment ayuu ku leeyahay eliminate that need for frequent spa visits wixii waa hore meel ugu aadi lahayd spa inaa maaragtay isku xalisid hadda isaga ayaa ku kala tuuraya oo markaa xiratid wixii adaa samaysan kartid meesha u aadi lahayd spaga normally spaga ayaa loo aadaa real life therapy-ga laakiin waxaa ku leeyahay gurigaaga ayaa ku samaysan kartaa oo convenience-kaas ayuu kaa iibinaya wuxuu kaa iibinaya kaleeto affordability offers professional grade technology at a fraction of the cost technology ayuu kaa iibinaya waxaa ku leeyahay technology noocaas oo kaleeto u wanaagsan ayaa waxaa ku helaysaa a fraction of the cost affordability-gaas ayuu target garanaya effectiveness
clinically backed device that delivers so marka wuxuu kaloo ka iibinaa effectiveness inuu bahalkan uu shaqeynayo iyo bahalkan inuu yahay device-kan uu yahay device clinically backed device clinically backed waxa laga wadaa in dad dhakhaatiir ah ay approve gareeyeen in dad dhakhaatiir ah ee maaragtay markay sameeyeen research ay dhaheen okay bahalkan wanaagsan yahay wuu fiican yahay hala sameeyo oo wuxuu caawinayaa skinka waxyaabanaas kaleeta sidoo kale waxay fiirinayaan simplicity streamlined routines that integrate stimulus into daily life in noloshaada caadiga ah aad maaragtay aad u isticmaali kartid therapy-gan adoo gurigaaga joogo oo maaragtay TV iska daawanayo in still aad isticmaali kartid maaragtay xalin kartid dhibaatooyinkaaga oo sida ay noqoto aging-ka wrinkles-ka waxyaabahaas xalin kartid global waxa iska dhaaftan waxa waaye wuxuu soo qabanayaa meesha aan joogo muhiim maahan competitive advantages innovative technology waaye clinical taadna ku sheegaya clinical validation wuxuu ku leeyahay FDA ayaa approve gareysay strong brand identity rapid growth wuxuu ku leeyahay productkan wuxuu sameeyay 13 million USD sanadkii koowaad oo maaragtay la launch gareeyay ama la sameeyay so marka saaragnabo research kooda muxumo research fiican ay sameeyeen kaliya marka saas u ogaatid waxa ogaan kartaa already bahalkan qofka ka iibin karto qofka ka iibinayso maaragtay angolada ka iibinayso waxyaasan ayaan maaragtay ku ogaanay kaliya anagoonan maaragtay wixii sameeyay runtii ChatGPT mid ka aniga loo waxay tahay ChatGPT-ga mar walba wuxuu ku xiran yahay information-ka aasiisisaga information-ka mar walba asaga ku feed gareysid oo prompt-ka aad gelisid hadaa markaan waxaan qoraayay prompt oo maaragtay wax badan ma qorin kaliya waxaan dhahay kindly analyze this competitor website wax badan ku dhahay kaliya ka waran hadii aad maaragtay information badan aad gelisid aadid waxa follow gareysaa the marketing maaragtay books ka follow garee buugaas hadani buugaga haysta marka buugta in akhrisid muhiim ma aha waxa leedahay buuga magaciisa u sheegaysa waxa leedahay buugaas adoo isticmaalay macluumaad ku qoran buugaas iyo hagaaji maaragtay iyo hagaaji product maaragtay angolkaas iyo hagaaji buugi waxa moodaa isaga inuu akhriyo oo garanayo marka saas ay u fududahay oo wixii maaragtay isaga ay kala tuurayo marka information-ka mar walba aad gelisid ChatGPT ayay ku siinayaan hadaa siisid maaragtay hadaa gelisid information yaris oo tacbaana jawaab yar oo tacbaan ay ku siinaya hadii marka koowaadna aad feed gareysid isaga oo aad gelisid information culus aad siisid kadibna wuxuu ku siinayaa jawaab iyadana culus oo u fadhido so aan dhahano hadda waan sameynay maaragtay analysis-kii kadib waxaan dhihi rabaa inaan dhaho product-kan ayaan rabaa inaan iibiyo waxa ay siisaa domain suggestions yani domain kaleeto oo aan iibsan karo khaladaadka ay sameynayaan beginner dropshippers waxay tahay in qofka markuu domain iibsanayo magaca .com waxaas oo kaleeto inuu ka dhigo magac maaragtay maybe magaciisa kale dooran haddaan maxamed dillo inaan ka dhigo maxamed waxaas ani magacayga muhiim ma ahan like nobody cares maaragtay magacayga meesha muhiimaddu waxay tahay inaad ka dhigtid magaca maaragtay waxa ay iibinaysid hadaa iibinaysid saad ka soo qaad kaleeto dadkan waxay iibinayaan magacaas inaad maaragtay ka dhigtid inaad magacii isku qabatid iyo shayga ka iibinaysa la rabaa in magacaaga caadiga aad doorato lama rabo iska ilaali so hadda waxaan leeyahay isii domain suggestions kadib waxaan arkaynaa magacyaduna siiyo okay saa aragtaan wuxuuna siiyey magacyo kala duwan wuxuu target garanayaa dhowr angol marka koobaad dhanka skin care-ka iyo dhanka beauty-ga dhanka innovation-ka maadaama waxaan uu yahay technology dhanka trust-ga iyo waxyaabo noocaas soo markaa fiir dhanka technology-ga wuxuu ku leeyahay waxaa qaadan kartaa glowtechskin.com ama lumiskin.com dhanka beauty-ga waxaa qaadan kartaa radiant muse glowsana.com luxdamis glowvana.com opal glow waxyaabo noocaas oo kale taa I don't know why we see na African touch waxyaabo noocaas kale taa so marka waxaa dhigi kartaa kaliya forget all of that just list 5 domains waxaa leeyahay isaga badanaa wuxuu yaqaanaa inuu maaragtay qararac badan iyo sheeko dheer ayuu yaqaanaa kaliya waxaa leedahay waxaas dhan iga dhaaf waxay siisaa 5 magac oo aan ka dooran karo marka waa kana magacyadu ku sii wuxuu ku leeyahay glow1pro.com lumiskin.com relightglow.com so ChatGPT badanaa wuxuu jecel inuu maaragtay sheeko badan iska qoro iska wareego marka mar walba waxa loo baahan yahay inaad ush ku hagtid aadid may san samee inaad u sheegtid waxa aad ratid so marka magacyaduna sii 5 xabo waa 5 xabo ayaa maaragtay fiirin kartaa in maaragtay la qaatay in kaleeto waxaa ka fiirinaysaa domain.com hadaa ratid in la qaatay
kuwa kale si ay leedahay 5 kale ku dar ama 6 kale ku dar kuwa kale ay ku siinaya ilaa marka dambe aad aragtid magac aad maaragtay jeclaatid magacana mar walba wuxuu la siman yahay productka aad iibinayso sheegay hadda productka la iibinayso waxa ku qasbantay inaa maaragtay hadana aad domain kale hadana iibsatid mar walba domainka ay iibsanaysid iyo productka waa in isla hadaan haddaad rabtid inaad iibiso alaab general ah oo guud ahaan ahna waxaa leedahay inaad fiirisid magac general ah guud ahaan kasoo qaada kaleeto waxaa iibin rabaa alaabta home improvementka alaabta guriga lagu quruxsado kaleeto markaas kaleeto waxaan dooranayaa magac maaragtay guud oo general ah oo la xiriiro home improvementka si shay walba oo home improvementka soo dhexgalayo aan u dhex iibin karo laakiin hadda kale ani waxaan focus gareynaa waxay tahay hal shay oo kaleeto markaas kaleeto waxaa loo baahan shaygaas kaliya magacii inuu la simnaado aan had magacii waa soo dooratay waa ka soo heshay waxaan qaataa kaleeto hadda tusaale ahaan glow1pro.com kaas ayaan qaadanaya waxaa leeyahay hadda ii samee logo waxaan arkaynaa sida uu sameynayo maaragtay u generate gareynayo imagekaas waxaa leeyahay glow1pro logo maaragtay magacaas wato ii samee wixii soo baxna waa arkaynaa so ChatGPT-ga image generationkiisa xoogaa slow waaye waqti ayay qaataa waxay ku xirantahay internetkaaga sidoo kaleetona research badan ayuu sameynaya oo wixii maaragtay imageka dhaqsadii ma soo boodaya waqti ayuu qaadanaya taasna kolley haddii waa iska dulqaadan doontaan waa arki doontaan waxaan ku dhahay hadda noo sameeya glow1pro.com ayaan doortay domainkayga waxaan dhahay waxaa tahay graphic designer qof pro ah ku fiican so marba isaga waxaa u baahan tahay inaad u sheegtid so ilmo yar oo la rabo inaad u sheegtid wuxuu maaragtay rabo inuu maqlo marka ku dhahdid waxaa tahay marketing strategist waxaa tahay manager waxaa tahay ad copy maaragtay specialist so marka wax walba ku dhahdid waxaas ku fiican tahay maskaxdiisa wuxuu shaqeynaysaa sida wixii maaragtay yaqaano oo ku fiican wuxuu ku siinayaa jawaab ka fiican marka aad maaragtay iska qorto wixii marka saa aragtaan sawirka noo soo saaray ma xumo laakiin wuxuu isku dayay inuu maaragtay productkii uu ku soo dhex dari karo loogadii markaa fiirana wixii si fiican looma arka brush miya wixii lama garana laakiin still waa la isticmaali karaa ma xumo kadib waxaan ku dhahay kaliya waxay siisaa logo texti ah oo qoraal kaliya iga dhaafaan dhahay maaragtay sawirkan aad sameynaysid oo maaragtay productiga kadibna wuxuu siiyey middan glow1pro saaragtan aad iyo aad ay u qurux badan tahay sidoo kaleeto uu aqli badan yahay wuxuu sameeyey maadaama productigan ay u badan tahay dumar ay iibsanayaan saaragtan loogada wuxuu ka dhigay pink ayuu ka dhigay I don't know pink mise purple waxay tahay ba pink ayuu ka dhigay ama inay tahay pink sababta wuxuu isleeyahay wuxuu taagid garanayaa dumarka so markaa fiirno ma xumo markay aragto qolada hadda SolarWave iyaga midka isticmaalayeen waa kana runtii markay noqoto e-commerce maanta la joogo logoda maaha waxa ugu muhiimsan kaliya hadaad isticmaashid logo yaroo qoraal ah oo text ah maaragtay that is enough in maaragtay ku mashquulsho logoda maba ahanba okay hadda waxa kale aan sameyn karna waxay tahay in maaragtay uu naga caawiyo text loo isticmaalo hadda kasoo qaado kaleeto productka marka aragto descriptionkeeda waa kana waxa way achieve radiant skin with the award winning skin waxaan ku diyaan soo qaadaya markaan soo qaado koobi ayaan leeyahay isaga uu la imaanaya waxaa leeyahay midkaas mid lamida ii sameeya sababtoo ah waa competitorkayga waxay isticmaaleen maaragtay descriptionka ay isticmaaleen productiga mid lamida ii sameeya waxaa leeyahay remake this wuxuu xasuustaa sheekadii hore aan u sheegay sababtoo ah ChatGPT wuxuu ku soo dareen in uu xasuusan karo wixii aad u sheegtay markii hore markaan dhahay markaan soo qaatay competitorga descriptionkiisa maadaama de computer descriptionkiisa uu ku jiro isaga product magaca isaga uu u doortay markii qaybta magaca ay noqoto uu ka bedelayaa wuxuu dooranayaa maaragtay magacii ani maaragtay uu hadda ii qaaday so wuxuu xasuustaa sheekadeeni soo saaragtaan reveal your grow your glow with glow1pro toodi waxay ahayd achieve radiant skin marka hadalladii inuu maaragtay Englishkii inuu isku dhaxqasi wuxuu ka soo saari hadallo cusub ka soo saari saas ayaana maaragtay mar walba isticmaali kartaa kaliya qaybtan ma ahan hadda ka soo qaad qaybtan waa benefits ka maaragtay faa'iidada oo product ay leedahay waxaan sameynaynaa hadda copy dhahno inta imaanaysa sidoo kale ku hagaajinaya marka waxa uu isticmaali kartaa qoraal walba oo maaragtay uu leeyahay competitorga waa bedeli kartaa sababtoo ah midka saxda ah qaadatid waxa kala kulmi kartaa dhibaatooyin maaragtay copyright infringement laakiin marka dhahdid intan ii soo qaad isaga u keenaysa waxa leedahay iga bedel remake bas leedahay remake tan amal sameeya leedahay mid kale sameeynaa oo key laakiin hadana key hadda fahmayso
midda ugu dambeysa rabin aan ka hadlo waxay tahay iyadana sida uu kugu soo saari karo image generation sababtoo ah kasoo qaadi kale waxaa dhahaynaa productigii waa haysataa waxaa u baahan tahay productigii oo qof uu isticmaalayo productigii oo maaragtay in real life uu qof maaragtay uu isticmaalayo kala alaabtan oo kaleeto qof saas gacanta ugu haayo kaleeto qof maaragtay shaygii wejigiisa u marinayo kaleeto in producti noocaas oo kaleeto images noocaas oo kaleeto aad heli kartid waxay kaa saacideynayaan social proofka in maaragtay storeka qofkii uu iibsay sababtoo wuxuu leeyahay alaabtan keliya sawiro oo shaygii ma ahane sawiro iyadoo la isticmaalayana way hayan hadda markaa fiirino storeka hadda dhalinyartan waxay yihiin ma naqaana wiil waxay yihiinbo markaa fiirino meeshan waxaa arkaysaa productigii oo wakasa hadda islaantana isticmaalayso waa kana mar kaleeto kan iska dhaaf waa kana asagoo haddana waxay kugu qoreen magacii hadda waxaa laga yaabaa in maaragtay dhaladan aysan magac ku qornayn marka hore laakiin isagii adadaadid magacay ugu qor magacii maaragtay kambaniga brandka ayuu kugu qoraa wax marka brandka watana qofkii wuxuu u badan tahay inuu aamino compared to markii wixii ay iska yihiin waxaad fiir kana kale hadda kan guduudka aad wejiga la gashanayo kor waxa ugu qoran SoloWeb waa brandka magaciisa markii wax walba ay brand garisan yihiin waxay qofkii maaragtay iibsanayo waxa kala dhacsan inuu maaragtay waxan uu kambani sax yahay had sawirkan kale fiiri islaan da'weyn waa islaamaha hadii uu target garanayo ilmo yar ma soo dhigaa sababtoo ilmo yar maaha waxa laga iibinayo producting dadku waxa laga iibinayo dumarka waaweyn oo maaragtay anti aging waxyaabahaas maaragtay focus garanayaan soo marka qofkii wuxuu ku tusayaa oo alaabta isticmaalayo sidoo kaleeto kuwan waxay tahay wuxuu ku leeyahay backed by health and beauty experts dadkan dad experts ah oo waxay recommend garanayaan in la iibsado maaragtay productkaas sidoo kale hadana waa kana waa aragna iyadoo la isticmaalayo soo mar walba shaygan haddii qofku arko iyadoo la isticmaalayo waxa u fududahay inuu qofkii wixii aamino laakiin markaad product kaligeed aad kasoo gelisid oo sawir laga qaaday mise sawirka AliExpress aad kasoo qaaday sidoo kaleeto ma ku anfacayo soo hadda marka waxaan soo qaadan doonaa markaad isticmaalaysid image generationka waxaa loo baahan yahay marka koowaad sida hadda kuwii horeeto ma siinin maaragtay wax reference maanan siinin maaragtay ChatGPT kaliya waan dhahayne waxa samee isaga ayaa iska sameynaya hadda laakiin waxaan siinaynaa maaragtay reference waxaan siinaynaa waxaan soo gelinaynaa imageka productiga kadibna isaga aanu hagaajinayo imagekii oo maaragtay qof isticmaalayo waxyaabo noocaas oo kale taa soo marka waxaa leedahay upload ayaa leedahay from computer soo wakasa product kan soo geliyay run ahaantii marka aad u baahanayso maaragtay ChatGPT Pro waa markan oo kaleeto sababtoo ah kaliya markaan free isticmaalayo kaliya waxaan haystaa ilaa 2 try 3 try camal aan haystaa kadib wax kale oo dheeraad ah maaragtay ma sii sameyn kari oo ma dhigi kari wax kale oo si dheeraad sii sameey sababtoo ah feature kan hadda oo maaragtay oo inta image kale reference u soo qaadatid idan aad dhigsid waxaas sameey aad dhigsid kaliya wuxuu ku fiican yahay marka Pro ga leedahay markaad leedahay midka free ga isticmaalan ChatGPT ga kaliya waxa haysanaa trial series ah 2 xabo 3 xabo 4 xabo haddaan markaas uusan maaragtay aan ka faa'iideysan weyno waxay noqonaysaa inaan 24 hours kadib haddana aan isku dayno hadda kale waxaan leeyahay markii aan u sheegtid waxay tahay waxa leedahay waxaan hadda ku siiyay leedahay image kan waxa waaye Real Life Therapy 1 image walba wuxuu yahay u sheegaysaa 1 waaye leedahay Real Life Therapy 1 waaye sidoo kale waxa leedahay waxay siisaa qof dumar ah oo isticmaalayo shaygaas kadib inta ay leenahay runtii promptka hadda aan isticmaalay prompt ma ahan maaragtay very strong ma aha kaliya simple English aan isticmaalay laakiin mar walba waxa wada waxa ka fiican mar walba inaa maaragtay specific ah taa dhahdid qof noocaas oo kale taa qof madow daarti madow inuu siiyo qof Asian daarti Asian inuu siiyo inaad siisid maaragtay macluumaad fiican inaad siisid ayaa ka qurux badan bal wax soo saaro ayaan isla arkaynaa okay saaragtan sawirka u horeyna soo saaro waxay tahay productii oo isticmaalayso haweeney oo marka fiirisid waxa leedahay qofkan waa qof run ah indhaheeda marka fiiriso timiheeda suuniyeeda afkeeda waa hore AI-ga uu ku dhib qabi jiray maaragtay inuu soo saaro gacmaha amal kale to faraha kale way dhibi jirtay indhaha kale way dhibi jirtay qofkii inuu AI wal fahmi karay hadda laakiin marka fiirisid qofkan AI misdhiisid suu hagaajiyay iyo perfect oo tahay waxa moodaa qofkii inuu studio aadi oo sawir soo galay kadib waxaan dhahay haddana waxay siisaa productii uu qof gacan saas kor ugu haayo kadibna waxa meesha ku soo qortaa faa'iidooyinka ay leedahay productkan kadibna anaa u sheegay faa'iidooyinka waxaan ku dhahay faa'iidooyinka waxa kamid ah remove fine lines diminish dark circles iyo boost collagen saaragtaanbo waxay isticmaashay AI nimsanaan karto wuxuu isticmaalay
maaragtay waxyaabihii aan u sheegay inuu maaragtay ku qoro ayuu ku qoray meesha gacantana fiirisay maaragtay perfect ku tahay iyo productigii kadib haddana waxaan dhahay haddana ma saddexaad waxay siisaa productigii oo haddana uu qof kale isticmaalayo haddana wuxuu siiyey haweeneydan kaleeto oo isticmaalayso so mar walba waxaa moodaa inuu haddana uu haweeney aadaya sababta wuxuu ogyahay productigan in uu maaragtay target garanayo dumar kaleeto oo maaragtay dumar ay yihiin dadka ugu badan oo iibsanaya marka run ahaantii ChatGPT-ga waxyaabaha uu samayn karo hal iyo laba ma ahan waa sii wadi karaa waxyaabo badan saaragtaan baad image-yada productyada waxaa moodaa inay daba gedisan yihiin oo dhanka hore gadaal uu mariyey laakiin haddii aan siin lahaa marka koobaad haddaan siin lahaa productigan hal sawir ayaan siiyey haddaan siin lahaa sawirkan hore iyo gadaalba haddaan siin lahaa saas ayuu maaragtay ku garan lahaa meesha hore iyo meesha gadaalee tahay laakiin markuu yahay just one side ma garanaa in dhankan la soo maray dhanka la soo marnaa waxay tahay laakiin still based on information ka CEO aad u yaraa iyo wuxuu isoo saaray maasha Allah boqolkiiba boqol maaragtay caadi maaha waa hore waxaa laga yaabaa in qof aad aadid maaragtay productka isku soo sawir u dirtid mise aad soo raadsid sawiraan qof isticmaalayo sidoo kale hadda waxaan ku dhihi karaa waxay samaysaa before and afters si aad maaragtay u aragtid productigan maaragtay qof transformation sameeyey oo marka hore laga yaabaa inuu maaragtay wrinkles iyo waxyaabo lahaa kadib markuu productkan isticmaalayna dhanka kaleeto maaragtay indhaha u hagaageen so wuxuu ku tusayaa before iyo after ayaa uu maaragtay ku samayn karaa haddaad ahdid ii samey before and after runaatii image generationka ChatGPT maanta la joogo wax ku gaaraya ma laha Sam Altman oo ah maaragtay OpenAI qofkiis kale iyo ChatGPT qofkiis kale ayaa haddana maaragtay Twitter ku soo qoraya in features cusub uu soo saari doono berito kulli markaad muuqaalkan daawanaysaan featuradaas way soo baxeen ayaan filayaa inuu soo saari doono feature cusub marka waxaa loo baahan yahay mar walba AI-ga inuu noqdo maaragtay hub aad isticmaali lahayd uu noqdo oo maaragtay xaggaaga mar walba jiro oo saaxiibkaaga ah marka kuma soo koobi karo maaragtay muuqaalkan inta waxa uu isticmaali kartid ChatGPT kulley waxyaabaha soo socda oo maaragtay uu keeni doono maaragtay Sam Altman iyo maaragtay teamkiisana kulley waan wax xiiso badan ayaa noqon doonaan waana ka sugeynaa run ahaantii AI waxyaabo badan loo isticmaali karaa ChatGPT bisa maanta ka hadalnay waxaa jira kuwa ku hagaajinayaan hadda muuqaalka hadda arkaysid waa sawir kaliya kuwa waxaa jira ku hagaajinayaan maaragtay productigii AI ku hagaajinaya productigii isagoo maaragtay ka hadlayo dhahayo productigan wuxuu ku fiican yahay waxaas marka scriptigii ayaa siinaysa scriptig waxaa noo hagaajinaya ChatGPT script noo hagaajinaya leeyahay scriptig ayaan qaadinaa iyaga ayaan u geynaynaa iyagana waxay yihiin AI UGC maaragtay creators kadibna hadaladii inta ku qoranayn ayay ku hadlayaan afkoodana waxa u dhaqaajinayaan maaragtay sida hadda hadalka afkii kasoo baxayo kaleeto hadal walbo in maaragtay bashinta raacayso saasoo kaleeto ayay iyagana sameynayaan oo waxaa moodaaba in qof caadi u hadlayo oo sheegan xaysiinayo qof jirana maaha waa just qofkaas qof jira maaha waa AI marka taasna way jirtaa iyadana waxaa loo isticmaali karaa maaragtay meelo badan ayaa laga isticmaali karaa kuwa waxaa jira la dhaho maker kuwa waxaa jira la dhaho iyagana kuwa badan ayaa jiraan laakiin kuwaas free maaha oo lacag ayaa bixinaysaa keliya hadda waxaan maaragtay target garanaynay ChatGPT waxaa ku isticmaali kartid laakiin AI badan oo waxaa jirto oo aad isticmaali kartid oo kaa caawinayo e-commerce-ka iyo drop shipping-kaba marka AI saan sheegabo haddii kow unbuu maaragtay bilbilow yahay mustaqbalkiisa say noqon doonto allahu aclam kolley sidan uu kasii weynaan doonaa mar walban wuxuu maaragtay fududeynayaa in maaragtay hawsha la qabto in hawl dhowr qof ay qaban jirtay ugu dambeyn uu hal qof keliya uu qaban karo marka muuqaalka haddaa ka heshay kolley muuqaal dheer ayuu ahaa haddaa ka heshay waa mahadsan tahay like subscribe and share